ليسوا سمي علنك الصومالي وقبوا سيدا kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo direed dacalada ka joogtaan ku soo dhawaada Kacaan TV iyo muuqaal cusub oo kaga hadlayno madaxweynaha TikTok ama Bilal Bushawi wiilka loo yaqaan ee mareegta TikTok caanka ka ah wiilkan oo barta TikTok ay dhalinyarada Soomaaliyeed aad u isticmaasho caanka ah ayaa maanta lagu xidhay magaalada Hargeysa haddaba sababta loo xidhay ayaynu eegi doonaa haddii aad nagu cusub tahay ama seen horeba noola sii joogtay share iyo like ta labadaba israaciyo nagu dhiirigeli page kana like iyo follow saaro mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك سوول بويداون سوادي سلامي وحان جوجا مقالة هرقيسة هراء اللي كل شيء يقولي هرقيسة جوجا وحان نحفظ يا مقايد وغشد المقالة جميرة ووجه الدين شاه Bilal Bushawi oo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed taqaano dhinaca kana loo yaqaan madaxweynaha TikTok kana tirsan kooxda iskoolka ama team iskool ayaa maanta lagu xidhay magaalada Hargeysa wiilkan caanka ka barta TikTok inta badanna ay Soomaalidu taqaano ayaa toddobaadkan ku sugnaa magaalada Hargeysa halkaas uu fasax iyo damaashaad kula qaadanayay dhalinyarada waqooyi wiilkan oo ka baxsan siyaasad iyo wax kale oo isaga ama seeno wax kale oo waqooyi iyo koonfur isku hayaan ayaa dhalinyaro ahaan iyo dalxiis ahaan u joogay magaalada Hargeysa haddaba xarigiisa sababta ka dambeysay ayaa ah in uu isaga oo ku sugan maqaaxil laga cabo shaaha muuqaalkan la wadaagay تجارياشيسا وكله هي برتا تيك توك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك سوول بويداون سوادي سلامي وحان جوجا مقالة هرقيسة هراء اللي كل شيء يقولي هرقيسة جوجا وحان نحفظ يا مقايد وغشد المقالة جميرة ووجه الدين شاه وعليسوا سمي علنك الصومالي وقبوا سيدا جدا وعلنك الصومالي ووجه الدين وحان نحفظ جوجا هرقيسة مقايد جميرة نحفظ يا عاوة إيانا كقرنا هاي ماشي أنا كباشلوهنا هرقيسة سقر بدنا نركسو دوي هو رئيس الجميرة مركا وحنا لا إليك نركسو دوي هذا أنا وما ستين هرقيسة حشد ناطر كقصليهن دادا يروى بلال بشاوي أيا عاوة حبسيغا اللي انتا كعبا يكدي مركي وبرتيسة تيك توك سوغلي موقال كهالكا إذين كموغلا ويل كان أو مقالة هرقيسة تضبات كان وچوغي دماشات إياد الحيس أيا bar shaaha laga cabo ama seero maqaaxi lagu shaaho loogu sameeyay shaah korka lagaga sameeyay calanka Soomaaliya kadib Bilal Bushawi oo arintaasi wax dhib u arag ayaa si dhib yar oo bilaa xanafa ula wadaagay taageerayaashiisa uu ku leeyahay barta TikTok iyo baraha kale ee bulshada Hargeysa jooga waxaan dhex fadhiyaa maqaayad ugu shida magaalada Jumeera waa u jeedin shaah oo calaysoo sameeyay calanka Soomaaliya ku qabo xiriga ka qosliyahan Bilal Bushawi waxa ka sii horeysay iyaduna oo ah arin la xasuusan karo laguna xasuusan kara falka foosha xun ee Muuse Biixi iyo xukuumaddiisu ay kula kacayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalxiiska ugu imanaya magaalada Hargeysa in sanadkan 2020 bishii toddobaad kooxda ismadhaantay ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi oo ah iyaguna ka qosliyaal soo bandhiga majaajilooyin iyo riwaayado horey looga tarxilay magaalada Hargeysa kooxdan ismadhaanto oo laga tarxilay magaalada Hargeysa ayaa sababsaday hadal kaftan ee uu yiri ninka kooxdaasi hogaamiyay loo yaqaano Big Bro ayaa la weydiiyay imisa jeer ayaa timid Hargeysa isaguna wuxuu ku jawaabay Hargeysa waa markii koobaad imid dalka Soomaaliya oo dhanna saddex magaalo ayaan ka tagay laba magaalo oo kale iyo Hargeysa ma afaqaa ninkii kawiis cuni jiray maanta Ferrari ku socda ya wayne Istanbul ilowdi okay arwa caligi carada isla cuni jirnaa arcuno waa laga baxay waa lacagaysta be ganacsi aan bilaabay ganacsi lagu ciro waa lagu caato waa arki jiray ya kan kiila la warwareegay maaha oo mahaaga jooga meel walba wax lagaaga iibsaha dukaanka la maahay waa soo marseelan moogaan walaalkay aniguna baraafeelka TikTok oo ii saaray